ma ku fakartay inaad laptop iibsatid laakiin ma ku jahwareertay noocyada badan ay laptopyada leeyihiin videogan maanta insha Allah waxaan ku sharaxaynaa noocyada kala duwan ee laptopyada iyo waxay kala duwan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Kusoo dhawaada barnaamijka wiiklaha ee Muraadso Technology Review. barnaamijkaas oo aan kaga hadalno wararka iyo agabka teknolojiyadda ugu dambeysay week kasta. qofku markuu laptop iibsanayo wuxuu isweydiiyaa laptopkeeba ugu habboon ama laptopkeeba ugu wanaagsan. Su'aasha haddaan isku dayo inaan ka jawaabno, jawaabteedu waxay noqonaysaa laptopka isaga maxaad u isticmaalaysaa ama shaqo noocee ah ayaa laptopka aad u isticmaalaysaa. laptopyada marka la isticmaalayo ama loo qaybinayo qaabka loo isticmaalayo waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood: normal use ama isticmaal caadi ah ama isticmaal dhexdhexaad ah, heavy use ama isticmaal culus, extreme use ama isticmaal aad u culus. laptopka tayadiisa markaad iibsanaysid waxaa laga eegaa afar meelood: kow, processorka ama CPU-ga; laba, RAM-ka; saddex, graphics-ka ama GPU-ga waxa loo yaqaano; afar, hard disk-ga. haddii aan u gudubno qaabka koowaad ee laptopka loo isticmaalayo, waxa weeye normal use ama isticmaalka dhexdhexaadka ah. normal use ama isticmaalka dhexdhexaadka waxaa loola jeedaa qofka isagu laptopka u isticmaalaya daily use-ka ama isticmaalka day to day-ga ama maalinlaha ah. tusaale oo kale inaad internet ka gashid, inaad ku edit garaysid dokumentiyo ama waraaqa ku qortid sida research-ka iyo CV-yada, inaad ku shubatid programmada fudud ee sida programmaadka xisaabaadka oo kale cookbooks loo yaqaano, inaad buugaagta ku akhridid iyo artikalada aad ku soo shubatid. kuwaas iyaga waxaa loo yaqaanaa normal use. haddii aad tahay dadka iyagu isticmaalkooda uu yahay isticmaalka dhexdhexaadka ah ama normal use, waxaad u baahan tahay laptop sifooyinkiisu ay yihiin sidan: kow, inuu processorkiisu noqdo Intel Pentium ama Core i3 ugu badnaan; laba, inuu RAM-kiisu yahay 2GB ama 4GB; hard disk-giisu inuu yahay 500 ama 1000GB. isagu wax kuma laha performance-ka wax saameyn kuma laha ama xawaaraha laptopka. graphics-ka ama GPU-ga inuu noqdo isagu 0, isaga waxba uguma baahnid wax graphics ah. laptopkaas isaga qiimihiisu wuxuu u dhaxaynayaa markuu yahay pro-ga ama brand new yahay, wuxuu u dhaxaynayaa 290 ilaa 350. markuu mustacmalka yahay wuxuu u dhaxayaa qiimihiisu 150 ilaa 220 dollarka Mareykanka ah. faculty-yada haddaan u qaybino iyagu laptopka noocaas oo kale uu ku habboon yahay, waxa weeye faculty-yada iyagu badanka aan isticmaalin wax programmo culus aan isticmaalin, sida tusaale oo kale medicalka, accounting-ka, social studies-ka, management-ga. faculty-yadaas oo dhan iyaga waxaa ku habboon laptopkan normal use-ka la yiraahdo. dadka isticmaala laptopka u isticmaala qaabka normal use-ka waa boqolkiiba 65. qaybta labaad ee laptopka loo isticmaalo waxaa loo yaqaanaa heavy use ama isticmaalka culus. isticmaalka culus waxaa loola jeedaa inaad ku isticmaashid laptopka programming, aad program ku samaysid ama software ku samaysid, inaad ku samaysid video editing, aad video ku edit garaysid ama video aad ku samaysid laptopka, inaad ku isticmaashid programmada culus ee lagu talagalay engineering-ka ama architecture-ka sida programmada loo yaqaano AutoCAD, ArchiCAD iyo Chief ay isticmaalaan ardayda engineering-ka ama architecture-ka. haddii aad tahay dadka iyagu u isticmaalaya laptopka isticmaalaadka culus, waxaad u baahan tahay laptop sifooyinkiisu ay yihiin: kow, processorkiisu inuu noqdo Core i5 iyo wixii ka sarreeya; laba, RAM-kiisu inuu noqdo 4GB ilaa 8GB; graphics-kiisu inuu noqdo 0 ilaa 1GB. ahamiyad isagu badan ma sameynayo, laakiin 1GB haddaad helaysid wuu ku wanaagsananayaa. hard disk-giisu waa saan soo sheegnay, kolba intaad xiiseynaysid ayuu ku xidhan yahay. laptopkaas aan sifooyinkiisa soo sheegnay, qiimihiisu wuxuu noqonayaa markuu yahay pro-ga ama brand new yahay 380 ilaa 550. markuu yahay mustacmalkana wuxuu noqonayaa qiimihiisu 250 ilaa 320. haddaan u qaybino qaabka faculty-yada, wuxuu noqonayaa laptopkaas wuxuu ku wanaagsan yahay ardayda iyagu dhigta faculty-ga engineering-ka ama faculty-ga architecture-ka iyo ardayda iyagu dhigta faculty-ga IT-ga, kuwa programming-ka iyo kuwa video editing-ka labadaba u anfacaya. qaybta saddexaad ee ugu dambeysa iyada waxaa loo yaqaanaa extreme use ama isticmaalka isagu aadka u culus.
waxaa soo hosgelaya isticmaalka aadka u culus advanced IT sida 3D programmingka ama multimedia video editingka sida videoda iyagu aadka u tayada badan leh ama quality-gooda sareeyo ee 4K ga ay wixii la mid markaad edit gareynaysid. waxaa soo hosgelaya kale advanced architecture oo isagu loo isticmaalo programmada ay kamid yihiin Lumion-ka oo program aad u culus oo u baahan graphics ama xawaare laptop si aad u sareeyo. haddii aad kamid tahay dadka iyagu isticmaalka noocaas oo kale ah oo isticmaalaya laptopka, waxaad u baahan tahay laptop ay yihiin sifooyinkiisu kow inuu yahay processorkiisu Core i7 walibana Core i7-nada dambe sida Core i7 generationkiisu yahay generation 5, generation 7 ama generation 8. RAM-kiisu inuu noqdo 8GB ama 16GB ilaa 32GB, hadduu kasii batana kasii wanaagsan. graphic-kiisu ama GPU-giisu inuu noqdo 2GB ilaa 4GB ilaa 8GB hadduu ka batana kasii wanaagsan markasta. laptop-yada noocaasa extreme use lagu talagalay qiimayaashoodu markuu brand new yahay ama cusub yahay wuxuu u dhaxeeyaa $750 ilaa $3,000. markuu mustacmalka yahayna wuxuu u dhaxeeyaa $450 ilaa $850. videoga isaga waxaanu kaga baxaynaa laba su'aalood. horta kow waxaad isweydiin kartaa lama sheegin magac, lama sheegin sida tusaale kale HP, Toshiba, Dell lama sheegin. taasna iyada ogaan baan uga tagay waayo ahmiyadu magaca ma aha ee waa laptopka gudihiisa iyo specification-kiisa. marka specification-ka laptopka ama sifooyinka laptopka aad ka heshid marka magaca shirkadda ka jeceshaad iibsan kartaa. su-aasha labaad ee qofku isweydiin karo waxa weeye maan laptopka ugu qaalisan ama laptop ugu tayada badan laan iibsado intaan hawshaas oo dhan geli lahaa. taas iyadoo laftigeedu waa fikrad wanaagsan laakiin laba mushkilood bay leedahay. kow lacag baxa ka baxaysa dheeraada oo aad u baahneen inaad adigu aad bixisid. tusaale kale waxaan soo sheegnay laptopyada qaar inay gaarayaan qiimahoodu $2,000 ilaa $3,000. laba waxaad iibsatay resources ama qalab aad isticmaalayn. marka tusaale kale aan ku soo qaadno waxaad la mid tahay sidii qof intuu kireystay ama iibsaday guri 10 qol ah oo qol kaliya ka degay. marka waxaad luminaysaa resource ama waxaad iibsatay resources aad isticmaalayn. videoga maanta isaga intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. mustaqbalka waxaan soo saarnaa videoyo kale aan ku sharaxayno waxa loo yaqaano CPU-ga ama processorka, waxa loo yaqaano RAM-ka, waxa loo yaqaano graphics-ka. inta insha Allah videoga soo socda waxaan u leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.